madaxweynaha Soomaaliya ayaa bishii Oktoobar 2017 saxeexay sharciga isgaarsiinta qaranka kaasi oo dawladdu si weyn ugu dabaaldegtay ansixintiisa. qodobada ugu weyn ee sharcigaasi ku jira waxaa ka mid ahaa dejinta sharciga maamulaya hay'adda isgaarsiinta qaranka iyo dhismaha hay'addii hagi lahayd isla markaana maareyn lahayd isgaarsiinta qaranka. qodobka tobnaad ee sharcigaasi waxa uu ogolaanayaa dhismaha guddiga maamula hay'adda isgaarsiinta qaranka oo ka kooban 9 xubnood kaasi oo 2 ka mid ah ay ka imanayaan wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, 3 xubnoodna ay ka imanayaan shirkadaha isgaarsiinta, xubinna ay ka imanayso bulshada rayidka ah iyadoo xubinta 9aad ay ka imanayso sharci yaqaanada. bishii May ee sanadka aynu soo dhaafnay 2018 ayaa sidii sharcigu dhigayay waxaa wasiirka boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyadda qaranka Cabdi Canshuur Xasan uu ku dhawaaqay aasaaska hay'adda isgaarsiinta qaranka. hay'addaasi oo awoodaheeda ay ka mid yihiin horumarinta iyo ilaalinta xuquuqda shirkadaha, ruqsad bixinta, diiwaangelinta iyo nidaaminta xeerarka isgaarsiinta. haddaba aasaaska hay'adda isgaarsiinta qaranka kadib waxaa soo baxday in wasaaradda iyo shirkadaha isgaarsiinta qaarkood aysan isku raacsanayn sida loo dhisay guddiga maamula hay'adda isgaarsiinta qaranka. muranka ugu weyn waxa uu ka taagan yahay 3 xubnood ee shirkadaha isgaarsiinta u matalaya guddigan. 3 xubnood ee ka midka ah guddigan xilligan talada haya waxay ka yimaadeen shirkadaha Hormuud, Somtel iyo Telsom. hase yeeshee 9 shirkadood oo arrintan ka biyadiisan waxay ku doodayaan in shirkadda ugu weyn shirkadaha oo ah Hormuud ay awood weyn ku leedahay guddigan. waxay kaloo ku doodayaan in 2 ka mid ah guddiga ay matalayaan shirkado xidid wadaaga kuwaasi oo kala ah Hormuud iyo Telsom. su'aalaha ay shirkadahan 9 ah hordhigeen wasaaradda iyo guddiga ayaa ah sidee ayaa shirkado tartan ugula jira suuqana nooga tun weyn ay haddana dhinaca kale u qaadan karaan kuraastii guddigii maamulayay shirkadaha oo dhan. sidee ayay dhexdhexaad uga noqon karaan markii ay dejinayaan shuruucda wada qabanaya shirkadaha sida shuruucda liisan bixinta iyo kuwa ku saabsan tartanka suuqa iyo hirarka isgaarsiinta. sayid maxamed cabdulle waa afayeenka 9 shirkadood ee diidan qaabka loo qaybiyo xubnaha guddigan maamula hay'adda isgaarsiinta qaranka. qaab dhismeedka hay'adda loo maray baa la baalmaray qaabka sharciga ugu qornaa iyo nidaamkii loo dejiyay in la qoro wax ka duwan baa markii la dhisay shirkadda loo dhisay. waxa weeye marka taas baa shirkaduhu marka isgaarsiinta oo 9 shirkadood aan sheegayno aad meesha ku qoran soona saaray bayaanada kala duwan bishii ilaa iyo bishii laga soo bilaabay bishii June sanadka 2018 bayaanada kala duwan soo saarayay waxay sheegahayeen oo ku cadeynayeen in sharcigii la baalmaray oo wixii meesha ku qoraa wax ka duwan la mahartay. sidee loo baalmaray walaal waxa loo baalmaray sharcigu sidii wuxuu ku salaysnaa in 3 xubnood ay ka yimaadaan 9 xubnood oo la dhisayo 3 ka mid inay ka yimaadaan shirkadaha isgaarsiinta oo soo ku imaanayaan wada tashi iyo inay yacaan waxa weeye dhexdooda shirkadaha isgaarsiinta ka tashadaan ka bacdina 3 qof la soo xulo laguna soo xulo aqoon iyo way aragnimo. sidaas marka si ka duwan baa loo sameeyay shirkado maxaa la yiraahdaa sister company ah oo magacyada la kala baxay laakiin hal company ah ay ka yimaadaan dadka badankiisa. muddada ay xilka haynayaan guddigan waa 4 sano. miyaysan idinla ahayn shirkadaha kalena inay kalkooda sugaan oo iyaguna 4 sano kadib ay ama u tartamaan ama buuxiyaan jagooyinka? waa sax 4 sano hadday hayaan laakiin kuma qoran 4 sano marka hayaan shirkadii laga tagaala siinaya. waxa weeye sharci si u qoran yahay hadhowna haddana lagu soo xulaya. qodobka 35aad ee xeerka isgaarsiinta qaranku waxa uu hay'adda isgaarsiinta qaranka awood u siinayaa bixinta iyo maamulka hirarka isgaarsiinta, laakiin qorshaynta hirarka iyo sharcigooda waa qodob ay haatan hay'addu wado. qodobka 41aad ee sharcigu waxa uu hay'adda awood u siinayaa bixinta, goynta iyo cusboonaysiinta ruqsadaha. labadan qodob waxay ka mid yihiin qodobada ugu xasaasisan ee shirkadaha ka hor yimid guddigan ay ka cabanayaan oo ay ka digayaan in lagu cadaadin doono. sayid maxamed cabdulle waxa uu leeyahay tallaabooyinka ilaa haatan la qaaday waa kuwaan cadaalad u falayn shirkadaha yaryar. waxa weeye waxaa naloo soo diray documentii oranahaya waxaad bixinaysaan laysinkaasna waxa weeye waxaad hay'adda waxay doonaysaa in laysin idin siiso. annaguna waxaan haysanaa laysin wasaaradda isgaarsiinta ina siisay oo dawladda federaalka ah. arrintaas marka waxay noo noqon weyday waxaan laysinkii dawlad cusub baa dhalatay marka isla markaasna annagu waxaan weynay wax alaala wixii adeeg ahaa oo looga baahnaa regulatory frequency baan weynay. waxaan weynay wax alaala wixii isgaarsiinta aan ku shaqayn lahayn ku adeegii yacnaha signaliska iyo wixii la oran jiray MNC-ga iyo wixii la oran jiray DC-ga la rabay in regulatory bixiyo xataa waxaan weynay frequencies baan weynay
marka regulatorgu waxay ahayd inuu u adeego shirkadaha oo siiyo frequencies, inuu siiyo bahalka la yiraahdo lumber plan, inuu siiyo bahalka la yiraahdo dhammaan wixii internationalka kula xiriiri lahaayeen dhammaantood. marka waxa weeye waraaq socod ordaysa nootan la yiraahdo 2 milyan baa ku qoran lilan karaba babadarkeeda noo ahaa inuu ciidana intii la washidaan oo soo marnay. yaa idin diiday ma qoraal baa laydinku diiday mise waa afka uun in frequency layda siiyo? yaa idin diida saa sameey? walaal frequencies-ka hay'adda laftigeeda aan ugu tagin dhowr jeer waxayna nagu yiraahdeen shirkadihii kale baan la xiriiraynaa, waxaan raadinaynaa bal in frequencies-ka ay macnaha wax ka helaan wax ka heshaan. markii ka bacdina waxa waa nooga soo waayeen, waxay yiraahdeen waxaan ka helnay ma jiraan. halka waxaa ka cadsiin shirkadii ay hay'adda laftigeeda ay frequencies baahayn oo shirkadda kale isticmaalayaan. qodobka 34aad ee xeerka isgaarsiinta qaranka ayaa ah kan xeerinaya danaha iska hor imanaya, gaar ahaan sida xubnaha shirkadaha u matalaya guddigan ay ugu cadaalad fali karaan dhammaan shirkadaha marka ay noqoto dhinaca shuruucda iyo difaacidda wadaagga hirarka iyo weliba xuquuqda ganacsi iyo tartanka. dadka taageersan qaabka uu xilligan u dhisan yahay guddiga isgaarsiinta qaranku waxay ku doodayaan in xubnaha matalaya shirkadahan ay ka turjumayso baaxadda shirkadaha oo ah kuwa dalka ugu weyn islamarkaana canshuurta ay bixiyaan ay ugu ballaaran tahay. cabdi sheekh axmed rooble waa maareeyaha guud ee hay-adda maamulka isgaarsiinta qaranka, waxaana soo magacaabay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. isagu waxa uu difaacay qaabka loo maray dhismaha guddigan. sharciga markii la baaskareeyey oo madaxweynuhu saxay wasiirka markaa hormuudka ah arrintan wuxuu horay dardargeliyey waqti badanna ka shaqaynayay sidii loo xuli lahaa dadka. sharcigu siduu u qoran yahana ma dhahayo dadku shirkadaha kama imaan karaan ama shirkaduhu looma xadadin ama khayraad ma jirta ah noocaas waa inay noqdaan dadka soo xuleysaan inay sector ka imaanayaan keliya ku qoran sharciga. waaye laakiin idinku ma xaqiijiseen shakhsiyaadka ay shirkadu soo xuleen inaysan saami ku lahayn, inaysan u shaqaynin shirkadahan soo xulay soo magacaabay? horta dadku wax falaya kuma jiro dadka la magacaabay oo boorka kamid ah oo nominationka ku yimid kama aan ah. hawsha waxaa la yidhahda wasaaradda soo xulidda dadka iyo mataqaanaa si usoo xuleen. ma ogi ogaalna uma ihi in conflict interest uu jiro iyo dadkan inay yihiin inay saami ku leeyihiin in la jiray kuma ogi. wax requirementi dhahaya waa inay saas noqdaan ma jiro. requirementi waxaa jira leh qofka ama saami ku leh ama wax kale ku leh inuu declare gareeyo shirkadda oo saamiga ku leeyahana markii ay issue hor yaalla oo yimaado guddiga inuu ka tagayso ama ka fadhiisto uusan doolda qayb ka noqon. laakiin wax haddana ma jiraan oo dhahayo qofka noocaas tan ku lahayo sharciga sidiisa xoogaa clear ma aha oo ma laha mataqaanaa dadku ku imaanaya shirkada ka imaanaya. haddaba caqabadahan soo baxay, cabashada shirkadaha, wadatashi la'aanta iyo halka meeshan looga dhaqaaqi karo waxaan hordhigay wasiirka wasaaradda boostada, isgaarsiinta iyo teknolojiyada injineer cabdi canshuur xasan. waxay dalka isku qaldaayeen. aniga hadda waxaad ii sheegtay in hal shirkada isku wada qaadatay. somtel kamid ma aha hormuud, telesomna hormuud kamid maaha. waa 3 shirkadood oo ah entity oo maaragtay sharci qaanuuni ah ku dhisan, laysan leh, cashuur bixiya, lala xisaabtamo oo midka waajibaad iyo xuquuqo isku mid ah ayay wada leeyihiin. marka shirkadahaas waa shirkada waaweyn oo dalka siiya isgaarsiin laga soo bilaabo lowicadda ilaa iyo ras camboni. runtiina waa maadaama waxba ay yihiin 3 xubnood ay kusoo ahday laguma wada qanci karo. hadda cid kale ay ka timaadana waloon baa qaali lahayd, laakiin waxa xilliga ay shaqeynayaan waa 4 sano. waxa laga shaqeynayna waa dan guud. cid dangaar shaqey karta lama arko. waa horumarinta sectorka guud. haddii cid isku dayda si gaara inay wax u samaysana qodob dhan oo ah qodobka 34 oo ayaa dhigaya oo maaragtay ah qodobka iska horimaadka danaha isdiidan ama conflict of interest wax afka qalaad loogu yaqaano. waaye qaar ka mida shirkadaha waxay leeyihiin keliya ma aha xubnuhu inay dhinac u badan yihiin, waxaa kaloo jirta xubnahaas inay ka tirsan yihiin shirkadda ugu weyn waddanka hormood oo kale. shirkadaasna waxay ka cabsi qabaan in ay galaangal badan ku yeelato qaabka maamulka guddiga maamulaya hay'adda isgaarsiinta qaranka,
gacanta ay ku dhigto hay-adaha kalena suuqa laga bixiyo. 9 qofood oo ah hay-adda maamulka hay-adda isgaarsiinta qaranka, qofkii 9aad horta lama soo magacaabin sababa jira aawadood. 8 kale waxay ku leedahay hal qof ayay ku leedahay shirkadda aad magacaawday. hal qofna waxba kama bedeli kara. inta kale qofkaasna waa qof aan kulley is leeyahay dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo haddii celi weyso oo maaragtay wax shirkad gaara oo isaga markaa soo dirsatay danaheedu inuu meesha soo dhexgeliyo go-aamadii hay-ad gaara oo maarata ku keeno. 8 kale horta ma bedeli karo. hadduu isku dayana sidaan kuu sheegay waxaa qabanaya qodobka 34 markaas wuxuu noqonayaa xubin banaanka laga dhigo oo wuxuu waaynayaa qofka xubinnimadii oo maarata ku mutaystay inuu kaga tirsana maamulka hay-adda isgaarsiinta qaranka. waxaa kasoo baxaya ama haddii la yidhaaho laysan qiimahaas ha lagu qaado, cid gooniya lagama qaadaya, dhammaan waa si siman loogu wada qaadaya. haddii qiimo loo gooyo spectrumka ay isticmaalaan dhammaan si siman ayaa looga qaadaya. haddii numberka ay isticmaalaan qiimo loo gooyo dhammaan si siman ayaa looga qaadaya. laakiin waxaan qabaa in sharcigan uu u roon yahay shirkadaha yaryarka, sababtoo sharcigan wuxuu qasbayaa sanadkan gudihiisana aan hirgeli doonaa inay isku xirmaan dhammaan shirkadaha oo dhan, oo qof kasta oo muwaadina hal sim card oo dalka sida maaragtay caalamka u shaqeeya ay ugu shaqeeyaan. marka shirkadaha yaryarka dan ayaa ugu jira inay sharcigan la hirgeliyo. sharciga ayaana maaragtay damaanad qaadaya horumarkooda. waxay hadda u baahan yihiin waa isku xir. haddii shirkadaha isku xirmaan, kuwa yararkana fursad ayay helayeen, kuwa waaweynna fursad ayay helayeen, macaamiishana waxay helayeen xuquuq badan ka maqneed oo ah qofkii intuu isku dabawadi lahaa 2, 3, 4 telefoon wuxuu helayaa hal sim card inuu maaragtay shirkad kasta oo kula hadlo. cillad kale oo ka dhalatay dhismaha guddigan waxay ahayd inaan la magacaabin xubintii 9aad ee ka mid noqon lahayd guddigaasi. kursigaasi oo ilaa haatan bannaan. waxaa kaloo cilladi ka soo baxday sharciga isgaarsiinta qaranka, iyadoo nuqulka uu saxeexay madaxweynaha Soomaaliya 2 bishii Oktoobar 2017 iyo nuqulkii uu ansixiyey baarlamaanka Soomaaliya aysan iswaafaqsanayn. xubinta 9aad bal waxa loo magacaabi waayo wax yar faahfaahin ka bixi. xubinta 9aad waa runta lama magacaabin, waxaana loo magacaabi waayey waxaa jiray nuqulkii ka soo baxay madaxweynaha u guddoomiyihii hore baarlamaanka ugu dambeeyey xafiiskiisa marka la gudbinayay loo gudbay madaxweynahaas oo u seexo kadibna kusoo baxday faafinta rasmiga. qodobkaas wuxuu khilaafsanaa kii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ayuu khilaafsanaa. marka madaxweynuhu nuqul qaladu saxeexay sax miya? ma dhihi karo nuqul qalad saxa, laakiin qodobkaas oo ka mid ah qodobka 10aad xubinta ka imaan lahayd qareenada ma aheen tii golaha shacabka iyo aqalka sare isku soo raaceen ma ahan, laakiin waa farqo yar oo hal qayb yar section yar ka mid ah qodobka 10aad oo ah xubnaha ka kala imaanayo xubinta qareenada ayaan waafaqsaneen sida meesha ka imaanaysa ayaan waafaqsaneen sida maaragtay labadii gol isku soo raaceen. taasna marka guddoomiyaha markaan kala hadalnay wuxuu noo sheegay inuu ahaa qalad maaragtay taagin markii la qoray lana sixi doono. marka qaldaad yar ah marka waa iska dhici karaan, laakiin ma dhihi karno maaragtay nuqulka qalad ma ahan. nuqulka waa 70 qodob oo mid kasta farqooyinka intaas le, laakiin waa hal sadar oo qaldamay dhammaan maaragtay ma noqon karto, intii kale ma harantinimay karto. laakiin wada tashi la-aantu ma ahayn oo keliya wax ku kooban hay-adaha iyo shirkadaha cabanaya, balse waxaa kale oo muuqatay kala aragti duwanaansho madaxda wasaaradda laftooda. markii la magacaabayey guddigan, galka baaristu waxa uu helay warqad uu qoray wasiiru dowlaha wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xildhibaan cabdulaahi bilanuur toddobaadii uun kadib markii wasiirka boostada iyo isgaarsiinta cabdi canshuur xasan uu ku dhawaaqay guddiga maamulaha hay-adda isgaarsiinta qaranka. wasiiru dowluhu waxa uu warqadaas ku sheegay inaanu wasiirku kala tashanin magacaabista guddiga. waa horta wixii arrinkaas ku saabsan waxaad kala hadli doontaa wasiiru dowlaha. warqadaas aniga waxaan ku arkay baraha, kadibna wasiirka waa ka wada hadalnay, waana dhamaysanay, waana arrin hadda isku meel aan kasoo wada jeedno. sideedana dad howl loo wada diray aragti waa ku kala dugnaa karaan, ma aha in aragtida lagu kala tago. aragtidaasna waa ka wada hadalnay, haddana waxaan maaragtay isku sii ayaan wax ugu aragnaa. arrinkaasna waa qodob hore loogu soo gudbay. haddii aad faahfaahin dheeraad iyo wax ugu baahan tahayna wasiir dowlaha inaad ka wareysatid ayaan jeclaa lahaa, laakiin wax maaragtay cudur iyo cillad ah oo hadda jiraa ma jiraan. bishii August 2018 booqasho waxaad ku tagtay Puntland,
waxaad heshiis wada saxeexateen wasiirka wasaaradda warfaafinta ee puntland. qodobada aad wada saxeexateen mid ka mida qodobka koowaad waxaad qorteen xeerka waxaa laga hadlaya xeerka isgaarsiinta qaranka. waxyaabaha aad ku heshiiseen waxaa ka mid ah qodob koowaad in dib u eegis lagu sameeyo xeerka isgaarsiinta dowladda federaalk soomaaliya, qodobada ay ka qabaan cabashada dowlad goboleedyada, iyagoo la tashan doona sharciyaqaanada qaabka iyo habka ugu habboon oo loo waajihi karo wax ka bedelista sharciga iyo dib u furidiisa. marka sharcigan laleeyahay dib ha loo furo, dib ha loo eego, waa midka baarlamaanku ansixiyey, madaxweynuhu saxeexay, sax? harun sideeda horta waa runta. wasiirka waxay haddaan xasuusto bishii agost 4 garowe aan tegey aynu ka wada hadalnay. qodobkii koowaad aan ku heshiinay ayuu ka mid ahaa. runtii haddii ay jirto cid maamul goboleed horta lagala tashaday, waxaa kamid ahaa maamul goboleedka puntland, madaxweynihii hore ee markaas joogay aynu ka wada hadalnay oo xataa qoraal uu kufiyey. laakiin haddii wasaaradii ama asigoo markaa iyo cid kaleba haddii hadashay waxa ay ka keenaan, anaga markaas waxaan diyaarunay inaan meeshooda ugu tagno aynu ka wada hadalno sida arrinta loo xaliyay. garowe ayaan iskugu tagnay, waana ka wada hadalnay in wasiirka, waana isku afgaranay. waxaan u sheegay sharci kasta aayad quraan ma, sharci kastaba mar kastaba waxaa lagu samey karaa dib u eegis, qodob ama wax laga bedeli karaa ama qodobbaa wax laga bedeli karaa, laakiin wuxuu leeyahay habraac iyo nidaam loo mara ayuu leeyahay. marka waxaan ku yidhi nidaamkaas u mara. xataa waxaa wax laga bedeli dastuurka ayaa wax laga bedeli karaa, laakiin wuxuu leeyahay habraac loo maro inuu dastuurka qodobkaas maaragtay wax laga bedelo. marka ma aha aayad quraan ah, waxaa maaragtay waa sax, waan u sheegay, laakiin waxaan rabnaa in habraaci loo maro haddii cabasho ay qabaan. wakti kastana waa u furan yahay in sharcigaas habraaci loo soo maro. haddii wax ka qaldan yihiin laiskuna raaco, labada gole isku raacaan inay aragtidaas sax ay tahay, waa la bedelaya, aayad quraan maaha. laakiin waa lagala tashtay sooma intaan uusan baarlamaanka xataa imanin, miyaan sidaad sheegtay? waa dhammaan waa kala tashanay, laakiin haruunow qofku waa soo koco karaa, wax kale ayuu tirsan karaa. laakiin annaga ka federaal ahaan, maadaama aan nahay hooyadii dalka soomaaliyeed ee dowladdii udhexaysay gobolada, haddii maamul goboleed ama shirkad ama cid cabasho waxay xaq noogu leeyihin inaan la fariisano, qancino, kala hadalno, meelna wax isla dhigin, oo aan dhehaynin shalaan wada hadalnay waa xiran tahay. marka haddaan shalay wada hadalno uu soo kocday, waa inaan u tagno haddana maaragtay aan ka qancino oo kala hadalno. dhinaca kalena hay-adda isgaarsiinta qaranku waxay bishii maarso ee sanadkii hore la soo wareegtay astaanta qaranka ee shabakadda caalamiga ah .so oo ay hore u maamuli jirtay shirkad lagu magacaabo sonic oo u taagan Somali Network and Information Center. laakiin soo wareejinta astaanta qaranka ma ahayn mid u dhacday sidii ay dowladdu doonaysay. baaritaan ay sameeyeen baarayaasha dowladda ka hor intii aan soo wareejintu dhicin waxaa lagu ogaaday in 2 koonto oo hay-adda sonic ay ku lahayd dalka Jabuuti lagala baxay lacag dhan $60,000. lacagtaasi oo si aan sharci ahayn ay ula baxeen qaar ka mid ah shaqaalihii shirkadda sonic. soo wareejinta xafiiska sonic waxaa hay-adda isgaarsiinta qaranka u saxeexay maareeyaha hay-adda cabdisheekh axmed rooble. waxaan kaaga sheegi karaa intaan ogahay markii sonic ama gaar SO la aasaasay inta ogaalkay ah ilaa hadda markii lala soo wareegay wax dhaqaala ah oo dowladda soomaaliya ka soo galay inaysan jirin. waa sida 100% ma hubo, laakiin waa sida aan maqlo dadku dhanna ay aaminsan yihiin. fiiska laga qaadano hadda markaan la wareegnay, waxaan la wareegnay dhaqaalo yar oo ku jira account ku taal Djibouti iyo mid ku yilay xamar. mas-uuliyadda aan qaadana waxay ahayd wixii maalintaa ka dambeeya, wixii dhaqaalo ka yimaadeen anagu mas-uul ka nahay, wixii intaa ka horeeyana hadda dhowrka guud iyo mataqaanaa gariiqaanku iyo dowladduba siday unba macaamil lahaayeen ee mas-uuliyaddaa qaadaan. anaguna mas-uuliyadda qaadno wixii markaa ka dambeeya inay mas-uuliyadda laleena. markaan la wareegnay waxyaabaha noo soo baxa waxaa kamid ahaa in dayn ku leeyahay oo shirkadii maamulayso kala register ay dayn ku leedahay .so domainka maamulkeedii, in macaamiisha oo registrarska register gareeyey dadka websiteska haysta deposit u yaala qaarkood oo maqan yahay. intaasna ayagoo document garaysan waxaan u gudbinay antidhowrka guud. markaan la wareegnay kabacdina xisaabteeda anaga hayna.
deynta ay ku leedahay shirkaddu ilaa hadda may taagan tahay intay la eg tahay deyntaas maya deyntu waa la bixiyey deyntu waxay aaday konton iyo shan kun oo dollar marka lacagtan jabuuti le 2 account bay ku jirtay dad baa kala baxay ilaa 4 qofa maxay ahaayeen dadkaa shaqaalaha ah dadkaas dadku ka shaqeeya ama saan ugu fahamsanahay la shaqeeyey wasiirkii hore ayay ahaayeen marka dad waxaa gabar waxaa jirta qof xisaabiyo ka ahaa lagula yiri waxaa lagu yiri cabdicaiis oo maamulo ka ahaa waxaa jireen mataqaanaa dad dhalinyara oo xirfadleeya oo ka shaqeeya oo dadka soomaaliya wax ka maamula ah marka individualska iyo wixii qaateen iyo waxaan intaan anagu aragno nafraad ka hayno waxaan u gudbinaa daroorka guud waa garta waxay qaateen lacag marka la soo wada geeyo dhan $59,961 bay kala baxeen midba qayb uu kala baxay number iskor ka maxay laakiin waa ku dhowahay galka baaristu waxa uu helay magacyada shaqaalaha 4 ah ee lagu tuhmayo inay lacagahaasi la baxeen waxaana xilligan baaritaan ku wada xeer ilaalinta Soomaaliya mid ka mid ah 4taasi qof waxa uu la baxay lacag dhan $16,500 waxa kale oo isku dayay inuu lacag dhan $85,000 uu la baxsado dhinaca Somaliland lacagtaas oo markii dambe ay dawladdu ku guuleysatay inay soo celiso haddaba sida loo maamulay Sonic iyo lacagaha la qaatay waxaan ka waraystay agaasimihii hay'adda Sonic Cabdulcasiis Xuseen Cumar oo haatan ku nool Australia Cabdulcasiis waxa uu hay'adda soo maamulayay tan iyo sanadkii 2015 Cabdulcasiis Xuseen Cumar kama mid aha shaqaalaha lagu tuhmayo inay lunsadeen hantida dawladda taariikhaha lacagta lagala baxay akawnada dawladdana waxay kala ahaayeen 10kii bishii Maarso 2018 oo ku beegnayd 2 maalmood kadib markii uu xil wareejinta sameeyay Cabdulcasiis Xuseen Cumar waxaana taariikhdaasi lala baxay lacagtii ugu badnayd oo dhannayd $39,461 lacagtii ku xigtay waxaa lala baxay 7 kadib oo ku beegnayd 27kii bishii Maarso waxaana koontada Jabuuti lagala baxay $16,500 labada lacagood ee kale oo kala ahaa $1,000 iyo $3,000 waxaa lala kala baxay 10kii iyo 12kii bishii Abriil 2018 maalinta anigu xilka wareejiyay wixii ka dambeeyo igagama furan wax hadal ah because anigu xilkii waan wareejiyay waxaan ku wareejiyay hay'ad dowladda federaalka Soomaaliya soo magacaawday haddii markaas wixii aniga markii iga dambeeyay waxay dhacay waxa wada hadalkooda iyo xisaabtooda iyo ka jawaabistooda iskala hay'adii aniga igala wareegtay iyo dadku aad adigu sheegayso oo aad leedahay waxbay la bixin anigu wali ma hubo in wax la bixin adigu baan ka hayaa aan ka maqlayaa marka iyagoon baa wada hadli doona wada xisaabtami doona laakiin anigu inta maamulka joogay haddii wax yani afgaran waa ay dhacay ama wax isqalad isdoomareen ay dhaceen anigu taaba xaq leeyahay inaan ka hadlo qoraalan wada qoranay hay'adda isgaarsiinta qaranka qoraalkaasaan ku kala wareegnay xilka aan ku kala wareegnay akoonada wixii yaala waa guddiga financiga sheegay iyagana isla markii guddiga ku magacaawday guddigaas baa hadda sida xogta ay sheegayso u keenay wixii la baxay wixii ka dambeeyay laakiin anigu 8 bishii wixii ka horeeyay waa halkeedii laakiin wixii ka dambeeyay waxa xisaabtada iska leh hay'adda marka hadda xilka haysay maamulaysay ka shaqeynaysa iyo dadku adigu ay leedahay waxbay la maqan yihiin iyo waxbay laakiin anigu ma hubo inay la bixin mana ku cadeyn karo mana hubo ma joogiyo access uma leeyahay ka shaqeynteeda iyo ogaanteeda dokumentiga dawladda isaa ugu taala marka dadkan yaa shaqaalaysiiyay sidoodaba ma u shaqayn jireen hay'adda marka aad u joogtay panelka iyo maxaa la dhihi jiray iyo weligaada sideeda markii la sameynayo hay'ad ama guddi la sameynayo waxay ka kooban yihiin tiro koox ama dad badan ay ka kooban yihiin ama dad yar ka kooban yihiin tiro unbay ka kooban yihiin tirada unbay ka mid ah dadkii ka shaqeynayay waxaana doortay guddigii markaas joogay marka dad waxay ahaayeen ka shaqeynaya hay'adda marka magacyada aan sheegay way ka shaqeyn jireen meesha oo hadda ku sheegay waa dad hay'adda igala shaqeynaya waa okay laakiin aad u maad shaqaalaysiin cid shaqaalaysiisa ma taqaan ma taas anigu maana shaqaalaysiin guddigan waxaa magacaabay wasaaradii markaas marka xilka yani aan wareegayay joogtay magacaawday xeer ilaalinta Soomaaliya waxay sheegtay inaysan xilligan ka hadlaynin baaritaanka ku saabsan lacagahaasi la lunsaday